wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Berbera maanta ka taafuray shirka tacadiyada ka dhanka ah dadweynaha u nugul ee carruurta iyo haweenka waxaana shirkaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Berbera iyo gudiyada kala duwan ee xaafadaha magaalada Berbera ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay shirkaasi suduwaha wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil Rakad Maxamed Suldaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo ujeedadiisa kulo maanta waxa kamid yahay shirarkii caadiga ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil qaban jirtay si joogta waana shir lagu tagalay in la saga wareysto arrimaha ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista carruurta iyo haweenka ama GBV working group meet waa shanta badan la qabto oo iska warsadaan dhammaan adeeg bixiyaasha gobolka Saaxil jooga gudiyada xaafadaha ururada arrimaha bulshada dawladda hoose qayb ka ah dhammaantood waxay iska wareystaan xaaladaha degmada iyo gobolkaba sida wax looga qaban lahaa xaaladaha taagan iyo sidii la isku daarsan lahaa xaaladaha soo socda inta badan waa hawl waa shir lagu tagalay lagu kala warqaato geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah hay'adihii ka soo qayb galay shirkani iyo gudiyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera iyagoo dhankooda soo dhaweeyay shirkani hadeer baan ka sheekeynayo waxaan lahaa tacaadi meelu ka gurnaay halkani maxkamadaha haddaad tagto waxaad arkaysaa 10 carruur halka lagu qubay ayaad arkaysaa maxaan ku dhahdaay kii dhalayna banaanka iska marayo waxaan ogaanay in magaalada ardayda wax dhigata ee xitaa iskuulada dhiganaya aanay qaar ka mid ah arki karin ba muraayada aanay arki karin ba waxa macalinku dhigay ba arki karin ay u baahan muraayado ay u baahan yihiin kuwa lafteedu waa baahi gaar ah arday aan waxba arki karin waxa weeye in galaaskiis ka fadhiyana waa dhib ay ku noqonaysaa marka inkastay dhibaatooyin iska mid yihiin haddana dadka aan la dadaalno dadkaasna ha helaan anagu ka dawlad hoose ahaan waxaa na hoos yimaada gudiyada xaafadaha oo waxa weeyaan si toos ah ula shaqeeya waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose wixii kaysisa ee ka dhaca xaafadaha iyaga u dhuun daloolo oo xaafadaha ku dhex jira waxay soo report gareeyaan xafiiska qaybta xiriirka dadweynaha kadibna waxaa lala wadaagaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay'adaha kale ee marka iyagu hawsha ku shaqada leh anaguna waxaan rabnaa gobolkayga inuu hore u dhaqaaqo gobolka Berbera wax muddo inuu yar seexday hawlo badan way ka seexdeen hay'adiina ma joogaan badan oo imika wax noo qabta oo hay'adu way ku yar yihiin sidaa darteed maadaama ay maanta halkan isugu nimeen ka faa'iideysana wasiiradeena inoo timiye waxaan rabnaa inay goboladii oo dhan la gaadho oo laga baxay magaalada dhexdeeda oo kaliya waxa kaloo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamed Daahir Cabdulla Gaafane inkastoo tacadigu qof yar iyo qof weyn baa u ficnayn haddana ka ku dhacaya carruurtu waa qof aan doodi karayn aan ka hadli karayn aan itaalus ka celiyaan lahayn wuxuu noqonayaa mid kasii muxuu ahaa kasii xun buu noqonayaa arrimaha noocan oo kale marka la isku yimaado xog baa la kala helaa marka xog la kala helana waxa la yiraahdaa waxa aynu qabanno gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay soona xidhay shirkaasi wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Mulga Maxamed Sambalooshe aabihii markuu arkay ilmo naafaa hooyadii inay dhashay uu kaga dhaqaaqaya sababtu maxay tahay marka miyay iibsatay iyadu ma iibsan ilaahay baa u qadaray labadoodana samirkooda lagu eegay qaar ka wanaagsan ilaahay siiyo way dhici kartaa marka tacadiyada ku dhaca waalidka inta badan hooyada ku dhaca ilmahana uu saameyn xoog leh oo ku sameeya gudiyada degmooyinka waxaan kala dardaarmayaa oo si qiimiyo sharaf leh idinka codsanaya inaad ka shaqeysaan mar walba waan ogahay Berberi waa xaalad adag xaaladda ay ku sugan tahay oo qofna maanta hadii aanu gaari haysan meel ma mari karayo inta yaran meel gelayna ama ka baxaynaanu dhaahnaa wama cadaabtanaad soo gasheen bal dadka ku nool ee ka shaqeynayana ilaahay ba xaaladooda og mar walba ilaahay waxa idinka baryaynaa wax wanaagsan inuu idinku bedelo waxaanu ka shaqeynaynaa cid kasto aqoon-yahana oo baahiyaha gaarka sida dadkeena dhagaha naafada ka ah aynu ugu sameynayno sibinaaro aanu ugu qabanayno inay aqoontooda ay balaaqadooda ay gaarsiinayaan iskuulada masaajidada meel walba aanu soo celin doono waxbarashadii ahayd luqadda suldhabaalaha aanu soo celinayno oo aanu u qabanayno workshopyo aqoontooda lagu kordhinayo si aanu u helno macallimiin iskuuladii ka dhisa carruurtii naafada ahayd ama carruurtii dhagaha lahayd masaajidadii kala qayb gala khudbadaha xilliga la akhriyayo